بسم الله الرحمن الرحيم. maanta cashirkeena wuxuu ku saabsan yahay wax loo yaqaano interocular pressure oo loo soo gaabiyo IOP. insha Allah qeexitaankiisa iyo interocular pressure wuxuu yahay iyo cashir yar oo gaaban ayaan uga hadli doonaa haduu Ilaahay yiraahdo. ugu horeyn aan qeexno wax loo yaqaano interocular pressure. cadaadiska ku jira isha dhexdeeda cadaadis ku jira isha dhexdeeda kaasoo sabab u ah qaab dhismeedka ay ishu leedahay ayaa loo yaqaanaa interocular pressure. Meena waa cadaadis ku jira isha dhexdeeda kaasoo sabab u ah qaab dhismeedka ay ishu leedahay. Maxaan ka wadaa? Tusaale, qaabka uu hadda leeyahay banoonigan ama kubaddan waxaa sababay cadaadis ay dhalisay hawada ku jirta dhexdiisa, taasaa marka sabab u ah qaab dhismeedkaas oo kubaddan leeyahay. sidaa islamada marka qaab dhismeedka ay ishu leedahay waxaa ilaaliya oo dhaliya interocular pressure-ka. marka waa cadaadiska ku jira isha dhexdiisa kaasoo sabab u ah qaab dhismeedka ay ishu leedahay. haddaba yaa dhaliya cadaadiskan? waxaa jira laba dareere oo isha gudihiisa ku jira oo la kala yiraahdo aqueous humor iyo vitreous humor. aqueous humor-ka ayaa ah midka dhaliya cadaadiska isha gudihiisa ku jira. vitreous-ka wuxuu ku jira qaybta dambe ee isha, waa kana vitreous humor. aqueous humor-kuna waa kana oo wuxuu ku jira qaybta hore ee isha ee la kala yiraahdo interior iyo posterior chamber. cashiro gooni ayaan ku baran doonaa. aqueous humor-ka daqiiqadiiba waxaa la soo saaraa 2.0 ilaa 2.5 microliter ayaa daqiiqadiiba la soo saaraa. waxaana soo saara ciliary body-ga. insha Allah cashir gooni ayaan uga hadli doonaa. marka vitreous humor-ka ma effect gareeyo mar walba cadaadiska isha gudihiisa ama interocular pressure-ka. sababta ugu weyn waxay tahay isagoo leh mug go'an fixed value. meena aqueous humor-ka daqiiqadiiba intaas la soo saaraa inta ila mid ah baxdo, laakiin vitreous humor-ku ma laha ma taqaana soo saaritaan iyo bixitaan labada. waa marka waa mug go'an, saas darteed marka ma effect gareeyo interocular pressure-ka. qalabka lagu cabiro interocular pressure-ka ama cadaadiska isha gudihiisa waxaa loo yaqaanaa tonometry. marka tonometry-gaas si kala baxo oo indentation tonometry, palpation, mataqaana qaybo kala duwan leh, laakiin si guud qalab walba oo lagu cabiro pressure-ka isha gudihiisa waxaa loo yaqaanaa tonometry. marka hadduu yahay midkan iyo hadduu noqdo midkan iyo wixii la mid ah, hadda labadan aad sawirka uga jeedaan, marka waa qalabyada kala duwan laakiin sidiisa waxaa loo yaqaanaa tonometry. cadaadiska isha gudihiisa ku jira marka uu caadigu yahay qofka normalka waxaa lagu qiyaasay 10 ilaa 20 millimeter of mercury. mmHg waa millimeter of mercury. waa qofku marka uu normalka yahay. 2.5 ilaa 3.5 millimeter of mercury ne wuu isbedbedelaa 24 saacba. marka qofka mar kale uu ka farxad badan yahay, mar waa ka murugo badan yahay, waqtiyada uu soo kaco, waqtiyada uu jiifo, cunooyinka kala duwan, waqtiyada uu exercise ka suubinayo ama biraha qaadaya iyo jimka wixii la mid ah. marka mar walba qofka normalka caadiga 2.5 ilaa 3.5 millimeter of mercury ayaa mar walba isbedbedesho mataqaana pressure-kiisa 24 saacba. marka hadduu qofkii aad jeegareyso waqti uu noqday 15, meena hadduu gaaro isla 24 saac gudaheedaba hadduu mar kale 18 ama mataqaana 19 gaaro, meeneed maaha inuu high yahay pressure-kiisu waa normal. waa inuu isbedbedelaa pressure-ka 2.5 ilaa 3.5 inta u dhaxaysa 24 saacba. haddii uu interocular pressure-ka ama cadaadiska isha gudihiisa ku jira uu ka badan yahay 21, waxaa loo yaqaanaa ocular hypertension. meena haddii uu xitaa mataqaana dhaliyo waxyaabo kale sida optic nerve-ga oo damage gaaray ama qofka vision-kiisa oo yaraaday, iyo haddii uusan dhalinba haddiiba marba pressure-ka isha gudihiisa uu ka badan yahay 21 waxaa loo yaqaanaa ocular hypertension. haddii uu
uu ka yar yahay 10 10 millimeter of mercury haddii uu ka yar yahay qofka pressurekiisana waxaa loo yaqaanaa ocular hypotony. aad iyo aad u mahadsantiin. fadlan sii share gareeya hadduu ilaahay yaraado.